السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaal qaybta qiimaha qadaadna mudan qaybta barnaamijka la socdo waxaa idinka codsanayaa haddii ay salaad idinku jirto salaad inaad iska soo bixisaan fadlan haddii ay idinku jirin inaad subscribe iyo saartaan oo aad gambaleel ku rufataan mahadsanideen hadduu allah idin maanta barnaamijkeena waxaa kusoo qaadan doonaa aragtida ciidanka ma aha shakhsi caadi ah waa shakhsi ka dhex muuqda bulshada inteeda kale ee ku nool caalamka iyadoo aan ognahay in dalka Soomaaliya ay aad ugu yartahay kalsoonida askariga lagu qabo balse arrintu sidaa ma ahan midkaan aad arkaysaan waa askari ku howlan u gargaaridda shacabka Soomaaliyeed hagidda shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale difaacidda ummadda Soomaaliyeed iyo hantidoodaba iyagoo inta badan dhibaato xooggan kala kulma shakhsi kasta oo ka soo horjeeda midnimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya haba ahaadaan kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba balse inaga ka Soomaali ahaan waxaan u aragnaa qofka dariiska ciidanka xiran dhibaato ku wajahan hantideena dadnimadeena caruurteena waayo waxaa inaga maqan micnaha iyo darajada iyo sharafta uu leeyahay shakhsiga ciidanka ahi balse haddii aan u baahannahay inaan wax ka fahanno micnaha askarigu uu leeyahay marka hore waa inaan fahanaa dowladnimadu iyo waxa ay tahay waayo muddo 30 sano laga joogo waxaa macquul ah dadka Soomaaliyeed qaarkood inaysan fahansanayn macnaha dowladnimadu ay leedahay iyo sidoo kale macnaha askarigu uu leeyahay waayo waxaa ka dhaxeeya askariga iyo qofka shacabka aan fahansanayn xiriir aad u weyn oo markaas labadaba saaran mas'uuliyadda dalka iyo dadka intaba balse waxaa jira tuugo ku labisan dariiska ciidanka Soomaaliyeed oo isla markaana ku geysanaya dhac boob iyo kufsi intaba markaasi ayaa waxaa dhacdaa in fikrad qaldan laga qaado askarta Soomaaliyeed oo alaaba u taagan midnimada iyo sidoo kale hagidda badbaadinta iyo difaacidda ummadda Soomaaliyeed waa ay adag tahay in askarta iyo bulshada Soomaaliyeed ay isfahmaan waayo waxaa jira dad ka faa'iideysta xiriirka ka dhaxeeya ciidanka iyo qofka shacabka iyo inta aan laga qaban dadka ka dhex faa'iideysta ee tuugada ahi ee ku dhex sugan dadkaasi si loo helo xiriir aad u adag ee ka dhaxeeya shacabka iyo ciidanka Soomaaliyeed haddaba si ay isku fahmaan ciidanka iyo shacabka waxaa loo baahan yahay waxaan ku soo qaadan doonaa qaybteena saddexaad ee barnaamijka hadduu aan idin masbuuc soo socda wabillahi tawfiiq haddii aad ku cusub tahay page-kani fadlan subscribe saar haddii aad ku cusubnayn fadlan share iyo like ugu caawi mahadsan